kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka galab ee Ogaal TV qodobada aan kugu haynana waxa kamida dagaal qasaare geystay oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug al-shabaab oo soo bandhigay rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya filla Soomaaliya oo si kulul uga hadashay hadal la yaab leh dhawaana ka soo baxay xubno ka tirsan midowga musharaxiinta Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo arin la yaab leh ka hadlay daawadayaal wararkan iyo kuwa kale aan kugu soo gudbin doona warka galab ee Ogaal TV fadlan daawadayaal hadii ay markiin kugu horeyso soo booqataan channelka Ogaal TV subscribe inoo saara si aad ula socotaan wararka iyo barnaamijyada xiisaha leh ee halkan mar walba aan soo galino gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish ayaa si diriq ah uga badbaaday xilka qaadis la sheegay in lagu sameyn lahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa la sheegay shalay inay ka baaqatay xilka qaadis lagu sameyn lahaa kadib markii la sheegay in uu hogaansami waayay amar ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in xilka qaadistan uu sameyn lahaa balse la tashiya la sheegay in Farmaajo uu la sameeyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka agdhow ayaa la sheegay in ay baajisay xilka qaadistan lagu sameyn lahaa arintan ayaa soo ifbaxday maanta waxaana la sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish la sheegay in arrimahaas uu ka baaqsaday sabab la xiriira in asaga iyo Farmaajo wada hadal qarsoodi ah ay dhaxmareen sidoo kale xogo hoose oo aan helnay ayaa waxa ay tilmaamayeen in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay soo ogaayeen raacdada gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ay ku heshiiyeen shaqsiga lagu bedelin lahaa ase yeeshee arintaasi oo dhan ayaa dhan kale isku rogtay daqiiqada oo kadib markii duqa caasimada la sheegay in arrimahani uu ogaaday isla markaana ka hortag uu ku sameeyay waxaana la sheegay in siyaasiyiin ka agdhow gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ay dalbadeen in xilka qaadis aan lagu sameynin Cumar Finish isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay ka dalbadeen in arrintan dib loo dhigo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa la sheegay in arrintan uu la wadaagay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxayna sheegeen in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday arrintan uu ku degdegayo ayagoo dalbaday in arrintan laga baaqsado maadaama xilligan Soomaaliya ay doorasho ku jirto waxa uu sheegay in gobolka Banaadir xilligan maamul aan la dhigin isla markaana dib u dhac uu ku keeni karo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa dhankiisa waqti badan ku bixiyay in laga baaqsado xilka qaadista Cumar Finish waxaana arrintan u gudbiyay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo ka dalbadaya in la joojiyo xilka qaadista lagu sameyn lahaa Cumar Finish xubno kamida sidoo kale waxa la sheegay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo kan Farmaajo in ay dalbadeen in Cumar Finish xilka laga qaadin waxaana arintaasi la sheegay in ay soo afjartay xilka qaadistii lagu sameyn lahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish sidoo kale ila xog ogaal ah oo u helay Ogaal TV ayaa waxa ay sheegayaan in Cumar Finish xilka qaadistii wali ay taagan tahay isla markaana madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo in uu xilka ka qaado Cumar Finish balse arrimaha la yaab kale ayaan la ogeyn sababta keentay xilka qaadista xilligan lagu sameynayo Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waxyaabaha sababay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka tirsanaa midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa waxa uu soo bandhigay arrimo la yaab leh oo qarsoonaa muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa qoraal uu soo saaray maanta waxa uu ku sheegay in uu soo dhaweynayaan qaabka ay u bilaabatay arrimaha doorashada golaha shacabka oo shalay ka bilaabatay magaalada Muqdisho hogaamiyaha xisbiga Himilo Qaran ayaa ugu horeyna waxa uu bogaadiyay sida xildhibaanada golaha shacabka ay dardarta ugu biloobeen waxa uu sheegay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayadoo musuqmaasuq laga ilaalinayo halkeeda laga sii wado sidoo kale waxa uu sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed in midowga musharaxiinta ay u diyaarsan yihiin in ay ka qayb qaataan doorashada madaxweynaha Soomaaliya hadalka Sheekh Shariif ayaana waxa uu ku soo aadaya ayadoo xalay war ka soo baxay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ay ku sheegeen arrinta shalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada waqooyi ay u arkeen mid halisa isla markaana qaarkood ay ka soo horjeesteen waxaana la sheegayaa in qaar ka mid ah midowga musharaxiinta
soo wajahay dhaqaale la'aan baahsan waxa ayna arrintaani ka dambeysay kadib markii Mahdi Guuleed la sheegay in loo doortay xildhibaanka koowaad ee xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale labada xildhibaan ee Mahdi Guuleed iyo Biixi ayaa la sheegay in ay galaan galdowle leeyihiin xisbiga nabad iyo nolol ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana arrintaani cabsi weyn iyo walwal ay ku abuurtay qaar ka mid ah midowga musharaxiinta oo xilligan qayladaan xooggan ka muujinaya arrimaha doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee ka bilowday Soomaaliya sidoo kale waxa uu guux xooggan ka jira fila Soomaaliya kadib markii midowga musharaxiinta la sheegay in warqada fila Soomaaliya ay ka soo baxday isla markaana lagu jawaabayo arrintaasi madaxtooyada Soomaaliya ayaa uga digaysa xubno ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya inay arrimahaasi ku sii dogolaadaan waxa uu sheegay in arrintaani ay tahay mid halis ku ah arrimaha doorashada ee ka socda Soomaaliya waxa aynu ka dalbadeen fila Soomaaliya in arrintaani ay joojiyaan midowga musharaxiinta isla markaana xilligan qalqal aan la galin arrimaha doorashooyinka ee ka bilowda Soomaaliya ila waraadiye ay heshay warbaahinta Ogaal TV ayaa waxa ay sheegayaan in nabad iyo nolol ay ku faraxday in doorashadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan kuwa gobolada waqooyi ee Somaliland ku matalaya dowladda federaalka Soomaaliya midowga musharaxiinta hadalka ka soo baxay ayaana waxa uu la yaab ku noqday fila Soomaaliya waxayna uga jawaabtay arrintaasi si jees ah iyadoo sheegtay in midowga musharaxiinta qaarkood ay doonayaan in ay ka qayb qaataan dib u dhac lagu keenayo arrimaha doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka waxayna sheegtay in dowladaha shisheeye ay qandaraas ku bixinayaan in midowga musharaxiinta xilligaani ay qalalaase iyo khilaaf arrimaha doorashooyinka ay huriyaan ayagoo ugu baaqay in arrintaasi ay ka feeltignaadaan isla markaana ay iska daayaan xubno ka mid ah madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in dadaal badan ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen xukunka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu mar dambe ku soo laabto arrintani ayaana ah midowga musharaxiinta ay la dagaalamayaan waxa ayna naxdi weyn ku noqonaysaa in nabad iyo nolol ay kursiga madaxtinimada Soomaaliya dib ugu soo laabato mar labaad nabad iyo nolol ayaa aad uga cabsi qabta in doorashada ka dhacaysa loolan adag ay kula jiraan Farmaajo waxaana sheegeen in xisbiyada qaar ay u midoobeen sidii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kursigan uusan ugu soo laaban lahayn isla markaana walwal xooggan ay ka qabaan sida cad waxa la sheegay in lagu kala aragti duwan yahay xisbiyada qaarna waxa la sheegay in xilligan dhanka Farmaajo ay u sii dhawaanayaan maadaama qandaraas lagu kala bixinayo isla markaana xilligan kooxda Farmaajo ay ku mashquulsan tahay sidii ay xisbiyada u kala dili lahaayeen waxaana laga cabsi qabaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dib ugu soo laaban doono kursigan waxaana cadaadis badan lagu saarayaa in kursigan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan dib ugu soo laaban midowga musharaxiin in xilligan doorashada ka dhacaysa Soomaaliya ay dhibaato weyn ay ku abuuri doonto hadii ay kursigan uu kaga guuleysto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale wararka ayaa qaar waxa ay sheegayaan in xilligan qaar ka mid ah midowga musharaxiinta ay codsi u gudbisteen fila Soomaaliya ayagoo ka dalbanaya in arrimaha ka socda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu faraha kala baxo waxayna qaarkood xilligan ay sheegayaan in ay jiraan warar aan ku aadan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si toos ah arrimaha doorashooyinka u soo farageliya isla markaana xogo muhiim ah oo la helay waxay cadeynayaan in guddiga doorashooyinka ay doonayaan in arrintaani ay dhibaato ka dhalan doonto hadii isbedel dhaqsiya lagu sameeynin warar hoose oo ay heshay warbaahinta Ogaal TV ayaana arrintaani waxa lagu ogaadayaa in ay halis ku tahay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in ay caddahay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu guddiga doorashooyinka Soomaaliya faragelin ku hayo gudahaan daawadayaal warkaad kala socoteen Ogaal TV waa naga intaas fadlan daawadayaal haddii ay markiin kugu horeyso soo booqataan channelka warbaahinta Ogaal TV